haddaan ku leeyahay Soomaaliland ani waa jeclahay dadaan jeclahay waa dad bun xariira waa waliba saaxiibkiisa Soomaali hadda boorsiis wuu xirxirtay fiidiyoyaal oo bari hore duubay oo Soomaaliland waxa ku sheegayo alla soo daayay hadda waa baaqday waa baaqday laakiin ma aadi kara hadda ma awood horta ha u malayn reer Soomaaliland inay idin neceb yihiin annagana la xiri lahaa Cabdullaahi Kashkaan la xiri lahaa oo in badan meesha ku noqonay laakiin dhalinyaro ayada markoodii hore afkooda isku toogtay wadankii dhan ee Soomaaliland caay dadkaas ayaga wuxuu aaminsan adiga ama aaminsan oo ama ha aaminsanaan laakiin ha soo bandhigin wani horta aniga markaan talaan dhiiba buuq badan ma sameeynayo waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee social media ku jira horta ha u malayn reer Soomaaliland inay idin neceb yihiin annagana la xiri lahaa Cabdullaahi Kashkaan la xiri lahaa oo in badan meesha ku noqonay laakiin dhalinyaro ayada markoodii hore afkooda isku toogtay wadankii dhan ee Soomaaliland caay dadkaas ayaga wuxuu aaminsan adiga ama aaminsan oo ama ha aaminsanaan laakiin ha soo bandhigin waa qeylna waa kibra baaraqba iska dhiga hadhowna markii aan u soo dhawaado Soomaalilandna dadkiina waa jecel waa idin imaana wax macquul ah noqon mayso marka waxaan leeyahay dhalinyarada social media ku jirta ay caanka ma yahow hadallada qaar ka fikira hadallada qaar ka fikira oo weligaana waxaa iska ilaalisaa hadal adiga biri kugu soo laaban doono dee hadda fiiri hadda maanta aniga Soomaaliland caay birina wax muhiim ah iga galay duwaasa waa hadalkii igu soo laabtay fiiri marka biri hadal aan ka qoomamayn doontid maanta hadhihin dhalinyaradu waxaa leeyahay jiilka naga dambeysooy is ilaaliya saaxiibkiisa Soomaali hadda boorsiis wuu xirxirtay fiidiyoyaal oo bari hore duubay oo Soomaaliland waxa ku sheegayo alla soo daayay hadda waa baaqday laakiin ma aadi kara hadda ma awood hal ma loo heli kara wallahi tasiki Soomaali uma leeyahay xal in loo helayo because markuu ma hadaladaas u dhahay waa dhiiranaa marka hadda inuu yaanyur iska dhigo waa qalad oo fahmaysa ila xaq iskiin loobay noqonay wuu iskiin loobaa qofka bil'aadda kala qalad waa ka dhici karaa laakiin dawey markaas uu hadlaysay Soomaali danin madcabkiisii bedeli kara ma ahan wuu ku taagnaa laakiin Soomaaliland lama kaftami karo kaftan ma waxa soo kala kaftan galaan maxaa kamid ah kaftan ma galaan waxa afkayga dhawaaji kara maaha aniga dadkaas dadaan jeclahay waay dad aniga madaxa isaarta waay hadallada qaar lagu dhaho ma dhihi kari mana ku abaal furi kari haddaan ku leeyahay Soomaaliland ani waa jeclahay dadaan jeclahay waay dad bun xariira waa waliba hadduu Soomaaliland qalad kaaga dhaco saa qaladka iskaga tirtid waa inaa u bareertaa waa u bareerey waxaa leedahay Soomaaliland waa idinku qaldamay waxaana la ii sheegay dad goba inaad tihiin waxaan rabaa inaan idin soo arko waana idin imaanaa qaladka aniga idinka galana anoo ogin qalad idinka galay iga jaaseeyay qaladkaas oo xabsi dhiga ama inay kaalaan dheereeyaan oo ku soo dhaweeyaan ama inaad si nadaam xabsiga u qaadatid si nadaam magaaladan u soo aragtid tartiibtaadana u soo laabatid